بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير والسلام دمان كجدال وحن سلام يا ضدك الصومالية ملك استوى عالم كجنوليين وحن لها جمعة وناكسن جمعة مباركة. ما أنتوا حنو استاجي إن أن سكوبا ضدك الصومالية وربحين ير أن أغسيه arinta ku saabsan bariyahan taagnayday ee ku saabsan Jubbaland iyo arrimaha ka jira iyo sida ay ku yimaadeen iyo wadooyinka ay soo bareen si kooban hadii alla yiraahdo waad ogtihiin dalkan teeramkii hore oo aan madaxweynaha ka noqday 2012 ilaa 2000 iyo bilowgii 17 bishii February ayaa annagoo tixgelinayno oo fulinayno waajibka dastuurku in saaray ee ah dalka in uu federaal yahay ayaa waxaan ka shaqeynay nidaamka federaalka ahay sida uu uga dhaqan gali lahaa dalka hawl kasta oo bilaaw ah waa iska dhib badan tahay sidii aan anagu la sadayna jeclayn umaanan bilaabin laakiin sidii duruuftu iyo sidii laga fursan waayay ayaa lagu bilaabay muhiimaduna waxay ahayday hadafka ugu dambeeya in la gaaro oo dalku uu yeesho dawlad federaal yani maamul federaal ah sida dastuurka uu tilmaamayay sidii ayaanan fulinay muddadii taarmkeedun joognay dalka dhamaan ayadoo 2012 markaan imaanaynay dawlad goboleedka Puntland bis oo dalka ka jiray iyo Soomaaliland oo dabcan duruuf gaar ah ku sugnayd maalintan barnaamijkaas nimiday horaantii gabagabadii 2012 waa taan nimiday bishii September oo 3 bilood October November December 2012 ka qabnay 12 aakhirkeedii baa waxaan ogaanay in uu socdo barnaamij looga hadlayo Jubbaland oo ka socdo magaalada Nairobi xaafadda Karen la yiraahdo barnaamijkaas dad badan oo Soomaaliyeed oo dhamaantood markaas sheeganayay in ay reer Jubbaland yihiin oo qabaa'ilka Jubbaland degan oo aan ogtiin Jubbaland waa Soomaaliya yar waay qabiil Soomaaliyeed oo aan deganeyn ma jiro haba lagu kala badnaado oo lagu kala muxuu ahay weynaadeen lagu kala dhul weynaadeen meeshiyaan weydiinay safiirkeena markaas joogayaan u dirnaan dhan warbal meesha waxa ka socda soo ogo meesha maamul lagu dhisayaa igadaana muxuu ahay yaa wada waa oo fududaynaysa marka dadkiina waa la hadalnay safiirkan u dirnay igadiina waa la hadalnay waxaan dhahnay Soomaaliya taladeeda waayihii ku meel gaarka ahayd oo banaanka looga tashay jiray waa dhamaatay gudaha la keena talada dad badan oo marka dadkii talada meesha ku hayay ahaa arintaas kuma qaraxsaneen raalina kama ahayn laakiin dadka in badan oo kamid ah oo arintaas ku qanacday iyo in kale oo ay kamid ahayd igad oo aan dawladda Soomaaliya warkeeda dhinac mari weyday ayaa sabab u noqday in la soo qaado intay yimaadeen ma fiicnayn inta waxaan dhahnay war aan tashanno waxa la sameeyay iyo shuruucda iyo nidaamka wixii dalka ka jira sida ay ogol yihiin aan u meel marino adigu dadkii waa la isla booqay dadku waa kala jabeen inaan kala jibino anagoo diidayna waxaan ka codsanay ilaantood in israacaan Kismaayo ay tagaan Kismaayo process-ka si fiican yani dabcan duruufaha Soomaaliya process kasto siyaasadeed oo la bilaabo ayaa sida caadiga caalamka oo dhan process kasto siyaasadeed tabasha ka jirto Jubbaland sidaas ay ku sameysantay nidaamkii sameysmay waxa madax u noqday Axmed Maxamed Islaam Axmed war wuxuu waa ka khaldan yihiin sidaan laga daayo yaan dhahnay doorashadu ilaa war meesha xoogaa doorashaha loo ekaysiyo oo hatta hadayna mid dhaba noqon karin dad kula tartama iyo waxa la sameeyay iyo waxba la yiri waxba muxuu ahay sidii la rabay aanan u dhicin inay noo yimaadaan waa diideen inaan u tagnana waa diideen waa daba kacnay waa dad badan u dir Soomaali u dir ajnabi u dir cid walba u dir waa ka quusan waa diideen